tasyahan wuxuu ka mid yahay dadaaladii lagu midaynayay faraxgelinteeda ayuu ka mid yahay. waxaan leenahay inaan midownaa murugay u tahay cadowga. inaan kala tagno kala go'naanaana waxay cadowga u tahay farax. waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim midnimada noo bilaabatay ilaahay inuu noo daa'imiyo, inta noo dhimanna aan si wanaagsan u dhammaystiranno, annagoo midana aan u midowno cadowgeenna. inta ay naga haystaan aan ka saarno, Soomaaliya oo dhanna aan ka saarno. markaasaan si fiican u dabaaldegaynaa, isbahaysigeennuna u weynaanayaa. wax alla wixii aan soo marnay ee dadaallo ahaa mirihii laga guranayay waa midii ay isugu yimaadeen maanta beesha caalamka iyo bahda Soomaaliyeed. caawana aad u dabaaldegaysaan. waxaan idin dardaarmayaa sidii aan taqwada Ilaahay idinkugu dardaarmay midnimo iyo gacmood isqabsataan. waxaan idin dardaarmayaa walaaltinimo. waxaan leenahay cafa allaahu camaa salaf. waxaan leenahay midnimadeennu waxay farax gelinaysaa Soomaaliya oo dhan ayay farax gelinaysaa. cidda ka naxayso magaca Soomaaliyeed sheegadaysana waxaan leenahay muutuu biqaydikum baan leenahay. waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inuu munaasabadan caawa fadhiyo madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madaxii ugu sarreeyay dowladda Soomaaliya ah. waayaha kanna shacabkii doortay uu dhex marahayay, caawana uu dhex fadhiyo shacabkii habeenkii la doortay u dabaaldegay iyagoo haddana dabaaldegaya. waxaan leenahay mar haddii nicmo lagu siiyo waxaa lagu ilaashadaa shukri. xarig baa looga dhigtaa oo lagu qaydaa oo lagu dabraa. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dowlad la-aantii uu naga bixiyey ee dowladdii Soomaaliya uu noo taagay, ilaah baan uga xamdinaynaa. mudane maxamed cabdullaahi farmaajo asagana doorashadiisii ilaah baan uga xamdinaynaa. waxaan leenahay mudane marada dhexda ku xidhaan leenahay. cadowga maanta Soomaaliya ibaadinaya oo baabi'inaya oo caaqil iyo carmali iyo carruur iyo cood aan midna dhaafayn, in dalka laga saaro laga baabi'iyo adigaa mas-uuliyadda ugu sarreyda kaa saaranta. annaguna waxaan nahay garbahaagaan ku noqonaynaa. waxaad ogtihiin dagaaladii ugu badnaa ee Soomaaliya ka dhaco nimanka lagula dagaalamay waxay ka dhaceen gobolladan. albaabkii ay mari waayeen ee ilaahay adkeeyey ahaayeen. waxaan rajaynaynaa mar haddii dowladda federaalka ay taageerto oy gacan siiso inay ka guulaysanayaan cadowga Soomaaliya baabi'inaya.
waayo gobolladan waxay uga xoreeyeen isku tashi ay isku tashadeen ee dawlad taageeraysay ama mid dhexa ha noqoto ama mid ajnabiya ha noqotay ma jirin. marka haddaan isku tashanno waa iska xoreyn karnaa, waana isku tashanaynaa. dawladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynihii nala joogana taageeraan uga rabnaa inaan iska zuulino nimanka walaalaha ay madax furashada u haystaan ee dhibaatada ay ku hayaan in laga kor qaado. dadka ay sugahayaan waa intiinaan iyo in idin lamid ah. waa inaad u diyaar garowdaan sidii looga xoreyn lahaa deegaamada ay hayaan, nafis loo sii lahaa dadka ay madax furashada u haystaan. waxaan leenahay maanta uma baahna Soomaaliya wax yar yar in la isku haysto, uma baahna iyadoo waxaas dadkii ay qalayaan oo ummaddii ay baabi'inayaan. wax ka weyn baa na saaran, mas-uuliyad ka weyn baa na saaran. waa in mas-uuliyadeenna aan ka soo baxnaa. waxaan leenahay caawa galmudug madaxweynaheedii baa fadhiya. waxaan rajaynaynaa asaguna wayga odaysaya, aniguna masaajidda anuga dhowa. marka caqli iyo cilmiba waa isku kaabaynaa insha allahu alkariim. caqli iyo cilmiba waa isku kaabaynaa. waxaan rajaynaynaa labadeennuna ciroolayaalaana. waxaan rajaynaynaa ummaddu inay u baxdo hadda kadib caano iyo baraaro inay u baxdo. waxaan leenahay aduunkuna na taageera, nagu taageera toosin. wixii aan ku gafno oo aad aragtaan naga toosiya. waasannahayo ma gafna dhihi mayno. dadka oo dhami waa gafaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. kullu bnu aadam khadaa' wa khayru lkhadaa'iina tawwaabuun. dadkoo dhan way gafayaan, kuwa gafana waxaa ugu khayr badan kuwa tooba keenoo ilaahay u noqda. midkii noqon diidaa naar buu gelayaa. marka kuwii markay gafaan ilaahay u noqda, ilaahay ha naga dhigo. waxaan leenahay marka aan garbaha isqabsanno, gacmaha isqabsanno, maalkeenna iyo muruqeennana aan midayno, cadowga aan iska dhicinno. dawladda federaalka ee beesha caalamka hadday nagu taageeraan, fadaaka hadday nagu taageeri waayaan, waa isku tashaynaa. dawladda federaalka waxaa laga yaabaa annakoo wax badan u malaynayna iyada lafteedu gaajo inay u baktinayso. waxaan leenahay sida annaka lafteenna naloo colaadinayaa loo colaadinayaa iyakana. waa ka wada baxaynaa, waxna waa isku darsaynaa. waxaan rajaynaynaa biidni illaahi alkariim bahda Soomaaliyeed inay guulaysataan rajaynaynaa. islaamka oo dhan inuu guulaystaan rajaynaynaa. cadowga annaka haddana haystana waa mid la wada arkay, la wada zuulinayo. kuwii iska hor zuuliya ilaahay ha naga dhigo. waxaan leenahay dadka u taagan difaaca dalka, ilaalinta amniga iyo shacabka, ciidamada xoreeyey
dhulkan aan caawa ku soo jeedna dhexdiisa ayakana waxaan leenahay axsantum axsana allahu ilaykum baan leenahay. waxaan leenahay waad wanaag samayseen, ilaahay ha idin wanaag sameeyaan leenahay. rag iyo gabdhaba waa inaan garab istaagnaa meel kastay joogaan, maal iyo muruq iyo mahadnaqbana aan ku garab istaagno. waxaan leenahay sidaas oo kaleeto dowladda federaalka Soomaaliya waa in aan garab istaagnaa. maamul goboleedyo ayaa jira, waxaan ballan qaadaynaa inaan garab istaagno. madaxweynuhuna hadhow uu ballan qaadi doona inuuna garab istaagayo. maamul goboleedyaduna waa noo ballan qaadin inayna garab istaagayaan, maadaama ay kuwana naga dhallin badan yihiin, kuwana ay dadaal dheeraadana dheer yihiin. marka waxaan leenahay mudane madaxweyne, ku soo dhawaaw galmudug oo midowday oo garabkaaga u fadhiyo madaxweynaheedii, annaguna asagaan u kaalmaynaynaa insha allahu alkariim. shukran lakum wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. mudane madaxweyne, caawa haddaa aragto dadkan oo war jecel ama warramaayo haddaa aragto, waxaa waaye dowladnimada iyo madaxweynaha ku cusub, marka waa kugu saseena hala yaabi. keliya madaxweyne ka maqnaay, marka caawa haddii lagu saso waa ilmahaayo kugu saseeyo saas u galo. waxaan rabaa xoogaa yar in wajiinka laydinka gaasho, kooxdaana halma ku dhufataa rabnaa. soo dhawaada. Samantha, I
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. markana waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi si uu ugu soo dhaweeyo madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaale geele xaaf kadibna loogu soo dhaweeyo madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi soomaali. dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo marwadiisa madaxa xukuumadda gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Galmudug wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka iyo senatarada Soomaaliyeed wasiirada iyo xildhibaanada dowladda Galmudug saraakiisha askarta iyo ciyaarta kale ee dowlad goboleedka Galmudug gabdhaha iyo dhalinyarada iyo ururada bulshada dhammaan ee reer Galmudug iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed
madaxda sharafta leh hogaaminaya madaxweynaha dowladda oo kala duwan oo ka mid yihiin la taliyaashiisa fanaanadeena weyn hiba nuura bahda saxaafadda kooxda baambeyda fanaaniinta nooysa ee caawa dhan dhammaantiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdisalaan runtii waxaa sharafi ah inaan caawa halkaan soo istaago aan xafladdan aan ka hadlo runtii waxay tahay wax maaragtay taariikh ah oo taariikhda maaragtay ay xusayso waxaan ku bilaabaa dhowr eray oo kaftana kadibna insha allah speechkeedan geli doona haddii la yidhahdo kaftanka waxaa ugu horreeya waxay tahay xiriiryaha wuxuu marar badan qaldayay protocolka ma garanayo sababta marka waxaa maaragtay runtii fiican qofka maaragtay protocolka haya inuu mar walba ilaaliyo protocolka si uu u socdo midda kale waxaa ayadana cad oo meesha ku jirto heshiiskan galmudug caawa ay gaartay wuxuu ahaa runtii heshiis taariikhi ah lagana soo shaqeeyey muddo dheer waqti dheerna lagu soo bixiyey dad badan ay soo bixiyeen waxaa muhiima dadkii ka soo shaqeeyey o dhan in mar walba la xuso oo la caddeeyo soomaalida waxay ku amaadaa haddii lagu sheegana waa la shiilaa haddii lagu shiilana waa la sheegaa sida dhabta ah heshiiskan galmudug ay soo gashay tan iyo maalinkii aan madaxweyne ku-xigeen ka noqday galmudug oo hadda 3 sano laga joogo muddo ku dhow ilaa haddeer waa ka soo shaqeynayna waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii la doortay inuu maaragtay barnaamijkan uu ka shaqeeyey si fiican annaga iyo maaragtay maamulka hersun isukaya keenay laakiin nasiib darro lagu guulaysan waayey waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweyne axmed ducaale geelle xeef sidii sharafta lahayd oo maalinkii la doortay u ballan qaaday oo maantana maaragtay heerkan la maraayo uu soo gaarsiiyey runtii oo ka miro dhaliyey guushii iyo maaragtay heshiiska miro dhalintiisa taas oo ah ayadana maaragtay wax aad iyo aad u fiican oo marnaba aan la heli karin waxaan kaloo u mahad celinaya madaxda hersunna oo ayagana runtii intaas mar walba qayb ka ahaa oo ayagana maaragtay raalli ka ahaa in heshiiska ay qayb ka noqdaan maantana markii ugu dambeysay aan uga mara dhalinay magaalada jabuuti oo runtii kadibna aan magaalada muqdisho kusoo sameynay saxiixiisii hadda maantana heerkan u marayo runtii sidaad la socotaan reer galmudug waa dad aad iyo aad maaragtay xilkas u ah waxtar u ah laakiin haddana nasiib darro deegaanada galmudug waxaa moodaa inay ka dambeeyaan deegaanada maamulada kale duruufo jira iyo dhibaatooyin jira awgeed waxaa haddii caawa ilaahay noo kasay inaan gacmaha isqabsannay ama aan walaalownay oo dad walaala aan noqonnay nagana bixeen waxyaabihii jiray caqabadihii yaryaraa waxaa loo baahan yahay inaan ka fikirno si aan dalkeenna horumarin ugu samayn lahayn ama dadkeenna aan maaragtay horumarin ugu samayn lahayn waxaa la socotaan mudan madaxweyne deegaankan galmudug oo aan ku nool nahay dowladihii waddanka soo maray 1960 ilaa iyo hadda aan joogno wax la taaban karo oo ay ka qabteen runtii ma jiraan sababaha keenana waxay ahayd mar walba duruufo kala duwan oo dalku uu marayay iyo xaalado kala duwan development la-aanta waxay keentay shaqo la-aan badan inay abuurto dhalinyaro badan inay pirates noqoto ama burcad badeed dhalinyaro badan inay shabaab gasho dhalinyaro badan inay maaragtay haajirto oo waddan ka baxdo dhibaatooyinka oo dhan waxaa keenaya shaqo la-aanta ka jirta deegaanadeena runtii sidii maanta aad ballan qaaday inaad nala xoreyso deegaanada galmudug ka maqan oo 4 degmo ah markii aan xoreyno kadibna waxaan kaa codsanaynaa sidii laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa hadda meeshaan joogno iyo meelaha kale oo sii soconnaba aad u ballan qaaday inaad meel walba kaabayaal dhaqaale ah u samaynayso in arrimahaas loo dedejiyo galmudug runtii way ka yar tahay maamulada kale wayna ka curdisan tahay sababaha keenaya inay ka hooseysana waxaa waaye duruufaha iyo baaxadaha iyo waxaa ku meeran waaye saa awgeed waxaan codsanaynaa in ilgaara lagu eego galmudug si dhabana loo fiiriyo xaaladaasna si fiican maaragtay muxuu ahaa looga fekero runtii heshiis sidiisaba marka la gaaro wuxuu u baahan yahay fulin iyo maaragtay dhammaystir iyo si saxa maaragtay in loo fuliyo wax walbana ay ku caddaadaan sidii lagu heshiiyeyna si saxa looga soo wada baxo mudan madaxweyne waxaan rajaynaynaa inaan arrintaa fulin doono bilaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdo runtii sidii hadda aad nagala shaqaynaysa hore nagala shaqaynaysayna aad nagala sii shaqaysaan annagana maaragtay runtii aan isku imaano oo hawshaa fulino galmudugna aan halka dhigno muddooyinka soo socota isku dhafna ciidamadeenna isku dhafna baarlamaankeenna
isku dhafna wasiiradeenna isku dhafna maaragtay dhammaan xukuumadeenna qaybaheena kala duwan oo dhan ayaan rajaynaynaa insha allah waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin in si fiican naloola taabageliyo oo naloola shaqeeyo hadduu ilaahay rabo waxaan u mahad celinayaa runtii raggii barnaamijkan isku soo dhabarjibiyey oo ugu horeeya maaragtay wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdisamid oo isagana maaragtay runtii ilaa iyo muddo dheer ka shaqaynaya mar walba in arrintan ay miro dhasho laakiin nasiib wanaag maanta ay u suurowday reediisii oo ku guulaystay maaragtay intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo khudbadayda waxaan ugu soo dhaweynayaa madaxweyne axmed ducaale geelle xeef madaxweyne kusoo dhaweey insha allah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مدن مدحوينه وحالك السلام يا مدحوينه جمهورية فدرالك الصومالية وهو halkan marti noogu ah ninka soo wada soconay haddana asaga marti noo ah madaxweyne ku-xigeenka madaxweyne taageer madaxweyne ku-xigeenkii oo galmudug ah ra-iisul wasaaraheena cusub guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle wasiirada xildhibaanada maamooyda ururada bulshada iyo dadka badan oo caawina noo sacbinaya khayr allaha siiya oo meesha aada ugu daalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marweyn aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay farxaddii ugu weynayd mar haddii caawa dhuusamareer joogno oo galmudug ay midowday aniga sheekh shaakir waxay naga joogtaa ninkii geela shubi jirayoo maaragtay yiri haddaan ururiyaa fagaan riday adna ayro haatan eeddaa ilaah baan qaba reer galmudugow reer galmudug waxaan idiin rajaynaynaa inaad meesha ka wadaan hawsha annagu hadda wixii saacaddan ka dambeeya waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay si fiican waxu taabagalaan laakiin hawshu waa nagu wada xihan tahay qof kastaa inuu geesiisa qabtaan la rabaa qof kastaa inuu taakuleeyaa la rabaa waxaan maaragtay aad iyo aad ummadda soomaaliyeed ugu guwaabinayaa oo aan jeclahay inaan u sheego maantana waa sheegay samir baa loo baahan yahay in laysu samro oo laysu dulqaato oo wax laysu oggolaadaa loo baahan yahay 27 sannadood baa waxaan ku noolay wallahan yeelayn wallahan hebel xukumayn wallahan reer hebel xukumayn 27 sano 28 sannadood baa socda maanta haddaan maalintii ugu horreyso mid uun iska raaci lahayn wax dhan baa noo hagaagi lahaa waxna nagama dumeen hadda waxaa jira runtii dhib weyn ayaa jira dhibkii dhib ugu weynaa ayaa weli soomaaliya ka jira waa qabyaalad soomaaliyay qabyaalad dugsi male maxaa la oran jeeda dugsi male qabyaalad waxay dumisan weeyaan qabiilka in maaragtay adrees laga dhigto waa la ogolyahay laakiin in had iyo jeer la isticmaalo waa laga yaro fiican yahay waa fiican dadku inay isku raacaan aqoon-yahano iyo noocyo kale inay isku raacaan baa dadku wanaagsan qabiilkii abtirsi inkastoo weli wax lagu qaybsado haddana waa inaan ka gudubnaa inta aan salka ku hayno weligeen meel gaari mayno ina ururo loo gudbo axsaab loo gudbo dad iskaashada oo wada socda oo isku mabda'a jeer la gaaro oo socon maayaan gobolkan waa gobolka soomaaliya ugu qanisan waxba yaan laydin odhanin beero male iyo wax kale male
neef ari haddaad keento meel ku xarayso sanadkii 5 neef buu noqonaya midda ugu sokayso weeye 100 ari haddaad meel ku xarayso sanadkii 500 buu noqonaya laakiin waa in cunto iyo biyo siisaa dib badan ayaana haysta dibkaasna waxaan uga bixi karnaa inaan annagu iskaashano inaan gacmaha isqabsano inaan kalluumaysiga raadsano inaan macaadinteeda qodanno inaan xoolaha yaga cunto inta u samaysano aan maaragtay aan ka dhigano hadda business kama dhigano kan xoolaha wata waa reer baadiyaa la yidhaahdaa waxaan ku dhaaranayaa haddaad 300 oo neef ari oo waxba ku fadhiyin intaad caws u beerto meel ku xarayso sanadkii 1500 neef baad helaysaa 1500 waa $100 waa $150 waryaa hela هذا هو صدق والله وحبضنا ayaa jira wax badan oo kale ayaa jira oo loo baahan yahay macallintu waa wax waliba waa buuxaan aanu dhaqaaqno yaynaan lugaha isqabanin yaynaan murmin yaan waqti dambe hadal nooga dhumin qabqabsi iska daayo in aan ta meel wada fariisano 6 saac waqti nooga dhumo inaan maaragtay hadallo oo murano aan iska dayno waxaan u baahannahay oo aad iyo aad ugu baahannahay inaan shaqo tagno inaan makaalib soo iibsano oo caruurta u dhibno leeda kalluun soo daba inaan xoolaha inta beero ugu beernaan cawskaa gurto xoolaha ku samaysta inaan jidadka بهراء كأسره وأنت حوجا شغالة ونا ما نقول بلا بقول أسره طورة والبلا يراد أنت قد قوم وتكري أس شدت كواحد الأمة اللي حاسب يعني ولا ريال نظر يوالي مروي أنت مركز أنا الله يصومالنا والله الله يا رجال من خاصة والله الله يا مثلا ما حوينه آدي معرف بعيان معرف وكلام هذا اللي نام مدة اللي شوفتي ينتهي نلسي شوفي دونتو هذه waxaan ka rajaynaa naga wargeyso oo dawladii federaalka ay nooga wargeyso oo caalamkii waa noo yimaado waanan arkeen nooga wargeyso oo warqado noogu qorto oo guwaabiso oo noo soo dhigtaan ka rajaynayna annaguna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan waxyaalaha yararka oo noo haray sida ugu dhaqsaha badan aan dhamaysto yaan ilaahay ka rajaynayaa dadkeegana inay gacan ugu siiyaan sidii sahlanayda heshiiskaan ku keenay haddana inaan kaamilidiisa ku keeno aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudan madaxweyne ku soo dhawow halkaa noogu jira madaxweyne Axmed Ducaali Geele xaaf iyo marwadiisa sharafta badan xakiimo madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Xaashi iyo madaxa xukuumadda Shaakir gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa maxaan iraahdaa dawladda golaha wasiirada oo ila socda baarlamaanka labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka dhalinyarada halkan caawa timid oo nala joogta gabdhaha salaadiinta culummada baambeyda
kooxda hawlada waa beri ee galmudug saraakiisha ciidamada halkan nala jooga bahda saxaafadda kulligii waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. waxaa mahad leh allihii na khalqayna abuuray oo caawa suurtageliyay inaan halkan isugu imaano iyo dadweynaha reer dhuusamareeb galmudug oo sida sharafta badan oo wanaagsan oo waaltinimada leh oo soomaalinimada ku jirtay lagu soo dhaweeyey waan martida u ahayn labadii cisho aan joognay. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha galmudug iyo dowladdiisa sida wanaagsan ay noo qaabishay oo iyadana waaltinimada leh. runtii farxad ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno midowga ahlu sunna wa jamiica iyo galmudug. waana maalin taariikhi ah, kulligeen taariikhi noo ah oo muujinaysa dadka soomaaliyeed may maqlaysaa raalli ahaada waa shaqeynayaa horta waxaan leeyahay dadka reer galmudug waa lasii badan yihiin. waa dhab dhibaatooyin badan waa lasoo maray, durufo badan adag waa lasoo maray, laakiin maanta waxaan leeyahay waa nasii badan tihiin. si sahlan kuu sheegaya saa waa nasii badan tihiin. waxaad ku nasii badan tihiin madaxweynihiina waa madaxweyne adduun. waa tan maqlaysa inuu ka hadlaya ganacsi iyo adduunye iyo bad la aado iyo beero la qoto iyo kheyraad la raadiye iyo lacag sidii loo samayn lahaa iyo suu isugu dhufanaya xoolaha qiimahooda iyo sheekh shaakir oo soo raacay oo duceynaya oo u duceynaya kulligii inaad janno gashaan. waxaan isku heli kara maaha marka runtii waa lasii badan tihiin. hadda wixii ka dambeeya wax soo saarkan u kaca ducaystana hala ducaysto. waxaan rabaa inaan runtii wax ka idhaahdo khibradda aan ka helay magaaladan iyo guud ahaan dadka degan galmudug. runtii waa dad aad iyo aad u wanaagsan oo quluub fiican oo weliba magaaladan ku arkay kala dambeyn badan yaan iyo xurmo. waxaan arkay ciidan nidaamsan oo runtii aas leedahay kulli ma kaxaysaa. oo meesha qolooyinka dhibka badan oo sharta wada ay u badan yihiin ma geysaa. siday organized u yihiin ay u habaysan yihiin iyo siday uga shaqeeyeen runtii wax caadi ah maaha. weliba waxyaabahaan arkay waxaa ka mid ah ahlu sunna wa jamiica oo la yidhaahdo waa culamo waa wadaado siday falka u jecel yihiin oo ay muusiga noogu garaaceen. taas waxay muujinaysaa inay ilbax yihiin oo caawa dhan raali ka yihiin inaan caweyno. weliba isheed waxay ku dhacday baashaan wareegaysa marka waa ku faraxsanaya sheekh shaakir iyo wadaadada inay nala caweynayaan oo aan wada tumanayno. weli laakiin qoobka cayaar lama gaarin. waxyaabahaan arkay oo runtii soo jiita waxaa ka mid ah baambeyda. runtii baambey san waxu garaacaysa ma arag. waxay soo hashiyeen xamar
marka dhowr jeer aan weydiiyey waxaan ku yidhi ilaa meeqa sana aruuriseen baambeydan marka maanta waa maalin taariikhi ah oo aan kulligeen markhaati ka nahay midowga dadka waalaha ah ee reer galmudug waxay ku midoobeen oo midaysteen ciidankooda waxay mideeyeen calankooda waxay mideeyeen baarlamaankooda calaamadaha wanaagga midnimada ay ku jirto taasaa ka mid ah baanbeyn aan arkayno iyo meeshaan qurxoon aan iskugu nimid iyo maxaan ku dhaha hoblada waaberi halkaan noogu tumaayey iyo sidaan iskugu nimid iyo beesha caalamka oo maanta noo timid waa inta ugu yar oo midnimadu ay leedahay faa'iidadeeda ay leedahay marka bal ka warrama soomaali oo midowday ka warrama marka bal qiyaasa annagu dowladda federaalku runtii waxay xoogga saari doontaa insha allah hadduu ilah yidhaahdo dhaqangelinta iyo hirgelinta heshiiskan wax walba waa ku bixinaynaa wakti walbana waa siinaynaa si uu usii adkaado midnimada galmudug maxaa yeelay quruxdan waxaan sii dayn karna ma aha waa inaan kulli ka wada shaqeyno waxaa ammaan mudan dadka waalaheena ay reer Cadaado oo muddo dheer runtii hay quruxdan oo fariisin u ahayd dowladda galmudug oo wanaag badan iyo soo dhaweyn badan runtii siiyay dowladda oo qayb ka ahaa dib u heshiisiinta halkan maanta isugu yimid diyaarna u ah inay xoojiyaan gacanna siiyaan adkeeyaan midnimada reer galmudug inay adkeeyaan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaan rabnaa inaan u mahadcelino ahlu sunna wa jamiica juhdigay geliyeen inay magaaladan iyo gobolkan intiisa kale ay ka xoreeyaan dhowr meelood maahee qolooyinka sharwadeenka ah oo dhibka wada oo al-shabaab ay naftooda u hureen dhiiggooda u daadiyeen inay noqoto darbi ay noqoto ay ka gudbi waayeen al-shabaab ay ugu gudbi waayeen meelaha kale ee runtii waqooyiga Soomaaliya ee Puntland iyo waqooyiga galmudug aad iyo aad ayaan ugu amaanaynaa insha allah abaalkeedana allah teelisan annagana wixii karaankeena waa sameynaa hadduu ilaahi yidhaahdo waxayna intaas ku gaarin isku tashi waa dhab dowladdu wax ma siinin iyagaa isku tashaday macnaheedu waxay ku tusinaysaa ummaddu hadday isku tashadaan inay isdifaaci karaan inay dhisan karaan noloshooda inay horumarkooda ka shaqeyn karaan laakiin waa markay ku midoobaan hoggaan wanaagsan markay ku midoobaan aad iyo aad yaan runtii ugu ammaanayaa waktiga iyo waxa ay geliyeen inay isku sii hayaan oo galmudug dowladda galmudug ee halkan u timaado wax u diyaarsan oo nidaamsan ee u timaado aad iyo aad yaan runtii aan uga mahadcelinaynaa waxaa jira baahiyo ay qabaan oo annagu aan runtii ku caawin karno ama aan gacan ka siin karno ballanqaadyana waa sameynaynaa insha allah caawa waxaa jirta agoontii dadkii mujaahidiinta ahaa oo runtii difaacay qolooyinkan khawaarijta ka difaacay carruurtoodii
inay u baahan yihiin in loo sameeyo kulajooyin meelo ay lagu xareeyo oo wax lagu baro insha allah gacan waa ka geysanayna waxaan dhagax dhigaynaa oo aan ka hirgelinaynaa magaaladan iyo meelo badan ee gobolkan dugsiyo farsamo oo dhalinyaradu ay wax ku bartaan farsamada gacanta ku bartaan si ay isugu filnaadaan aysan uga raadsan nooc kasta oo farsamo ah meel kale aysan uga raadsan oo iyagu ay gacmahooda ku qabsadaan wax alla waxay rabaan hadday noqoto furniture la sameeyo hadday noqoto maxaan ku idhaahdaa sida xaaf uu sheegay in noqoto macdinta hadday noqoto koronto hadday noqoto baabuurta iyo biraha sida loo samaysto insha allah waxaan ka bilaabaynaa oo aan ka dhisaynaa dugsiyadii farsamada gacanta insha allah macallimiinna waa idin keenaynaa si aad iskugu filnaataan hadduu eeba yidhaahdo dhibkaan aragna intaan soo soconay waxaa ka mid ahaa in jidadku kulli ay baaba'san yihiin oo 27 sano ee lasoo dhaafay aanan cidna u tegin aanan la ribayr garaynin oo aan la dayactirin oo ay burbureen meesha nus saac ay ahayd in lagu tago laga yaabo in lagu tago 2 saac iyo 3 saac iyo wax ka badan insha allah qayb baan ka qaadanaynaa idinkoo wadan doona isku tashiga iyo aad bilowdeen annagana aan gacan ka geysan doono sidii aan jidadkaas u dhisi lahayn aan dib ugu dhisi lahayn si dadku iyo ganacsigu uu si sahla uu soo goosho hadduu eeba yidhaahdo waxaa la ii sheegay in cisbitaallada halkan jira ay aad iyo aad ay u dayacan yihiin ayna u baahan yihiin inay gacan ka helaan dowladda federaalka insha allah hadduu ilaha yidhahdana gacan waa idinka siinaynaa si dadkeenna aan u daaweysano khaasatan carruurta iyo dumarka hadduu eeba yidhaahdo waxaa kaloo la weydiistay haddaan xasuustaan markii xaafil la dhaarinayay oo aan ka soo qayb galnay kow wuxuu yidhi ma xasuustaan hana loo dhiso xabsi gobolkan xabsi ma laha macnaheedu waxyaabaha keeni kara in criminalska dadka dambiilayaasha ay dadka ku dhex jiraan ama dib loogu noqdo hawlihii dhaqanka iyo qabiilka oo intuu maanta qofku wax dilo oo dadkiisa ku dhex jiro ama inta uu wax dhibaateeyo la yiraahdo faataxa qaado waxa keenaya xabsi la'aan iyo nidaamkii maxkamadaha oo aan jirin waa dhisaynaa birina waa dhagax dhigaynaa insha allah hadduu ilaaha yidhaahdo hal maaha dhowr xabsaan samaynaa insha allah bambaydan qaar ka mida inay gobolada kale u diraan ama goboleedyada kale ama halkan idinkugu yimaado scholarship aad bixisaan waxyaabaha kaloo muhiimka ah waxay tahay oo aad naloo weydiiyey gobolkan ma laha dekado waxyaabaha aan doonayna dalkan inuu ku horumarana waxay tahay gobol walba inuu yeesho dekado waxaan leenahay xeeb aad iyo aad u dheer waxaan lahaan karnaa dekado badan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo maalmaha soo socday waxaan dhagax dhigi doonaa dekada hobyo hadduu eeba yidhaahdo gobol walbana waan ka sameynaynaa dekado bacdamaa aan leenahay xeebta ugu dheer ayna soo maraan maraakiibta traffic ugu badan adduunka macnaheed markaan leeyahay gobollada waxaan ka wadaa sideed tobankii gobol wixii badda ku aadan maamul goboleed keliya ma aha marka meel kasta oo suuragal ah inaan ka sameyno deked
maraakiibta marka dalkeenna waa maraakiibta ugu taraafika jidkeennu waa jidka ugu taraafika badan adduunka marka inay noo noqoto kaabayaasha dhaqaalaha qaybaha ugu waaweyn inay noo noqoto waa inaan ka shaqeyno waxaan ballan qaadaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo oo kale in dowladda federaalka ah ay gacan siiso ay taageerto dowlad goboleedkan galmudug bacdamaa sida la sheegay ay dhab tahay ay curdun yihiin waxyaabo badan ay u baahan yihiin inaan waxyaabo badan ugu roonaano insha allah intay kasoo kabanayaan hadduu eeba yidhaahdo sidaas oo kale dowlad goboleedyada kale naftigooda inaan sidaas oo kale u ogaano asmaqalno sidaas oo kale dowlad goboleedyada kale naftigooda aan wax alla wixii kala keenna aan ugu roonaano oo aan gacan u siino oo aan aad iyo aad maaragtay ula shaqeyno dhan walbaba hadduu eeba yidhaahdo dib u heshisiinta hadda aan arkeyno waxa weeye waa bilow waxaa loo baahan yahay inaan gaarsiino meel walbaba inaan gaarsiino dib u heshisiinta heer beelo inaan gaarsiino beelaha soomaaliyeed oo waxyaabaha macnaha lahayn ku dagaalsan inaan dhex galno oo aan nabad ka sameyno dhexdooda aan nabad ka fulin dhexdooda aan isku soo dhaweyno oo aan tusno inay yihiin dad waala ah oo aan kala maarmin ay heshiiyaan ay ku khasban yihiin inay wada noolaadaan haddaysan nolol haysan oo haddaysan nabad lahayn waxaa xaqiiqa ah inaysan nolol helaynin marka dadkana dhegaysanaya beelaha soomaaliyeed oo ishaya waa idiin soo soconnaayo ogaada waa idiin imaanaynaa ogaada waxaan geenaynaa tuulooyinka dadka degan ama nawaaxigooda inaan gaarsiino iyada naftigooda inaan gaarsiino inay wax wada qabsadaan ay isku tashadaan ay walaaloobaan hadduu ilaah yidhaahdo iyo degmooyinkaba macnaheedu waxay tahay cid walba inaan la hadalno cid walba in la qanciyo haddaan taas gaarno oo aan isqancino oo aan isu tanaasulno waxaan aaminsanahay dalkan inuu midoobayo haddii uu midoobana uu nabad helana soomaaliya inay barwaaqa noqonayso meel barwaaqa inay noqonayso waxay noo horseedaysaa taas marka bacdama aan dhibaatooyin badan soo marnay oo dadkeennii ay dhibaatoodeen oo nabaddii runtii nabad la-aan badan ay dhacday oo dadka soomaaliyeed aad arkaysaan sharaf darrada iyo karaamo xumada meesha aan ka taagannahay adduunka ma aaminaysaan inaan nahay dalka adduunka ugu xun ma aaminaysaan annagoo ah dadka ugu fiican bal isqabadsii labadaas in la yidhaahdo dalkan waa dalka ugu xun adduunka waa dalka ugu fakrisan adduunka annagoo nimcada ilaahayna siiyey macnaheedu waxay tahay waa isqaadan la'nahay waa isu samrin la'nahay waa iscafin la'nahay waa isu tanaasulin la'nahay taas weeye waxa annagu aan ka shaqeynayno dowladdaani horumar u noqonayso dowlad goboleedyada ay nagala shaqeynayaan qof walba oo soomaaliyeed aan ka rabno inay gacan nagu siiyaan oo nagu garab istaagaan taas markaan helno waxaa noo bilaawday dhaqan dimuqraadiyeed ah bacdama aan soo marnay qabiil inaan waxba lagu kala qaadi karin diin si xun loo qalloociyeen inaan waxba lagu qaadi karin inay maanta taagan tahay walaalow inay taagan tahay walaalow macnaheedu waxay tahay haddaad doonayso inaad xafiis qabato haddaad doonayso inaad madax noqoto dadka inaad barido oo aad kasbato waa dimuqraadiyad inaan ka shaqeyno dimuqraadiyaddii marka oo aan u gudubno meesha aan ka taagannahay qabiil iyo 4.5 iyo reerkayga maxay heleen inaan u gudubno xisbigayga muxuu helay mabaadi'deeda ka fiican mabaadi'daas leadershipkayga ka fiican leadershipkaas ee aan qofka loogu codeynin heeb aan loogu codeynin qabiil aan loogu codeynin degaan aan loogu codeynin ee loogu codeeyo qofkaani muxuu ka bedeli karaa xaaladda jirta muxuu dalkan horumar gaarsiin karaa sidee dadkan u walaaleyn karaa mabaadi'da noocaas oo kale ah waxa weeye dhalinyaro waxa wakti ka lumay shalayna uu ka lumay waa idinka waxa hadda wakti uu ka lumayna waa idinka waxa la isticmaalayna waa idinka diida qabiil ha yeelina qabiil
qabiil haddaa yeeshaan 27 sano oo hadda naga khasaartay 27 sano kala soconayna markaasna waxay jirtaan 60 sano waqtiina waa dhamaaday waqtiga la ka dhameeyay qabiil ma shaqeynin dil la qalloociyana ma shaqeynin waxa shaqeynaya waxay tahay Soomaalinimo wadaniyad qadiyad wanaagsan shaqo wanaagsan yaa shaqeynaya aqoon Soomaalinimo yaa shaqeynaya macnaheedu waxay tahay ballan aan qaadno inaan dalkan gaarsino qof iyo codkiisa markaan qof iyo codkiisa salaad cali jalaal sacabku bilaabay intuusan tagin hadhagax dhigo xisbigiisa walaalayaalow waxaa noo balana dalkeennu waa dal fiican dadkeennu waa dad fiican inaan ka shaqeyno midnimada inaan ka shaqeyno Soomaalinimada inaan ka shaqeyno dimuqraadiyadda inaan ka shaqeyno Soomaaliya inay ka hormarto wadamada hadda anagu qaarkood aan xorriyadda ka hor qaadanay oo hadda naga hormarsan inaan ka daba tagno oo aan ka hormarno kartideeda waa leenahay caqligeeda waa leenahay dadnimadeeda waa leenahay diinteeda waa leenahay waxaana laga rabaa oo kaliya caqliga inuu shaqeeyo kaliya waxaan codsanayna wax yar la fariisto madaxweynaha waxaa la guddoonsiinayaa hadiyad yar sidaas daraaddeed waxaan rabnaa Sheekh Shaakir inuu soo kaco oo asaguna qaybta kaleeto hadiyada qaybteeda labaad uu guddoonsiiyo madaxweynaha وأنا كان آخرين أنا قضي ما شاء الله ما شاء الله
واو اوكي فرص بالسي ما شاء الله هاي ما شاء الله ماي فرص سوق الكرميات ما سوق الكرالين بناك كو قادنا